taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa loo gacan geliyay galka maamul dhisidda maamulka Jubbaland ee ka madax bannaan kan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee laga dhisayo gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharre. soo dhawada wada haday tahay markaa kugu horeysay ayaa soo booqato halkan subscribe noo saar noo like garay muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galka gobolka Gedo waxa uu xil saaray taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. waxaa la tilmaamayaa tani inay timid ka gadaal markii dhowaan dagaal ka dhacay gobolka Gedo lagu kala adkaaday isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay ku taagroonaatay in hadda wixii ka dambeeya uu hogaamin doono maamul dhisidda gobolka Gedo iyo guud ahaanba hogaaminta dagaalka lagu wajahayo Axmed Maxamed Islaam Madoobe. taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad waxaa la tilmaamayaa in kulamo muddo saacadaha ka socday taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Habar Khadiijo isla markaana u dhaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad in la isla qaatay in guud ahaanba galka lagu dhisayo maamulka Jubbaland cusub ee laga dhisayo gobolka Gedo in lagu wareejiyo guud ahaanba taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. waxaa la tilmaamayaa oo ay soo dusinayaan ila ka tirsan madaxtooyada Villa Soomaaliya in guud ahaanba lagu kala calaf qaaday isla markaana lagu wareejiyay galkaasi inuu hogaamiyo taliya Mahad Maxamed Salaad. wixii markan ka dambeeyana waxa ay guda galayaan guud ahaanba habka loo dhisi karo maamulka madax bannaan kan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe kaasi oo uu hogaaminayo muddo 14 sano isla markaana aanan dhaafin magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulkaasi. waxay doonayaan inay ka yagleelaan maamul cusub magaalada Garbaharre ee xarunta gobolkaasi Gedo halkaasi oo la geynayo isimada iyo bahda dhaqanka qaybahooda kala duwan. waxaa halkaasi tagaya saraakiil sarsare oo dowladda ka tirsan xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada kuwaasi oo guud ahaanba ka qayb galaya dhismaha maamulka cusub ee laga yigleelayo magaalada Garbaharre kaasi oo ay dowladdu ugu wanqashay Jubbaland cusub oo laga hirgelinayo magaalada Garbaharre. qorshahan waxaa hogaaminaya Mahad Maxamed Salaad waxaana sidoo kale dowladdu ay wadaa qorsho markaasi madaxweyne looga dhigayo maamulka Jubbaland. wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waxaana ay doonaysaa in guud ahaanba ninkaasi uu noqonayo ninka ugu habboon ee markaasi hogaamin kara Jubbaland walow uu midabyo badan yahay isla markaana hore uu la soo shaqeeyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. haddana dowladda federaalka ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh mar kale waxa ay aaminaysaa in guud ahaanba isaga uu hogaamiyo qorshahaasi isla markaana lagu dhisayo maamulka Jubbaland cusub. warar aynu helayno waxa ay tilmaamayaan in Axmed Madoobe oo arrintaasi ka hortagaya inuu diyaarinayo ciidamo tirabeel ah kuwaasi oo uu doonayo in guud ahaanba uu dhigo magaalada Garbaharre iyo magaalooyinka kale ee ka tirsan Jubbaland isla markaana ku yaala gobolkaasi Gedo. qorshaha ugu muhiimsan waxa uu yahay sidii loo baajin lahaa guud ahaanba qorshaha lagu dhisayo maamulka cusub ee Jubbaland ee laga yagleelayo magaalada Garbaharre. waxaase la tilmaamayaa taasi si ay ugu hortagto dowladdu waxa ay diyaarinaysaa ciidamo isku dhafa kuwaasi oo ka kala tirsan nabad sugidda booliiska iyo militariga kuwaasi oo siyaabooyin kala duwan tababar u haysa. waxaana la tilmaamayaa in la geynayo magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharre oo la tilmaamayo in laga hirgelinayo maamulka cusub si markaasi guud ahaanba amniga saraakiisha iyo xubnaha kale ee ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi tagaya amnigooda loo xaqiijiyo. isimada dhinacyada ayaana la tilmaamayaa in halkaasi la geynayo waxaana ugu badan bahda dhaqanka ee halkaasi tagaysa kuwii uu ka soo eriyay Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe. waxaase la tilmaamayaa in dowladdu ay garab ka heleen isla markaana markan ay hogaaminayaan Jubbaland cusub ee laga yagleelayo gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbaharre. maalmihii ugu dambeeyay dowladdu waxa ay dagaal ka abaabulaysa gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Balad Xaawo halkaasi oo ay isku food saareen isla markaana muddo 10 maalmood oo xiriir ah dagaal uga soconayay magaalada Balad Xaawo Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo kala hogaaminayo Jubbaland iyo sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaa la tilmaamayaa in dagaalkaasi wixii ka dambeeyay dowladdu ay wajahday rajo cusub taasi oo u dhalan karta bulshada gobolka Gedo isla markaana maamul iyagu ay soo xusheen halkaasi ka curan kara isla markaana iyagu ay hogaamin karaan. tani waxa ay u arkaan fursad xoogan gobolka Gedo iyo shacabkiisu waxaana la tilmaamayaa in ay helayaan fursad cusub oo ay ku hogaamin karaan Jubbaland maadaama hore aysan iyagu u hogaaminaynin. waxaa la tilmaamayaa qorshahan
in si weyn ay u soo dhaweynayaan bulshada ku dhaqan gobolka Gedo waxaana ay noqonaysaa tallaabo cusub oo curduna isla markaana la jaan qaadi karta Jubbaland cusub ee la yagleelayo waxayna bulshada siyaabooyin kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyay uga dhursugayeen maamulka cusub ee dhawaan la dhisayo waxaase la tilmaamayaa in tallaabadaasi uu horkacayo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad kaasi oo siyaabooyin kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyay uga shaqeynayay qorshahan xilli uu wakiishay qorshahaasi hogaamintiisa taliyaha Jubbaland ee dhawaan uu magacaabay ee nabad sugidda Cabdirashiid Janan kaasi oo guud ahaanba markan dagaal ku wajahay Jubbaland isla markaana kaga adkaaday magaalada Balad Xaawo dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka jiray markaas waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba dhinacyadu ay soo afmeerayaan qorshahaasi waxayna qaadayaan tallaabooyin kama dambaysa oo looga miro dhalinayo qorshaha lagu yagleelayo Jubbaland cusub ee laga dhisayo magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo taliyaha sirdoonka Soomaaliya waxaa la tilmaamayaa in toddobaadyada soo aadan inuu tagayo magaalada Garbaharey ee xarunta gobolkaasi Gedo si uu si ambaqaado wajiga koobaad ee dhismaha maamulka cusub ee Jubbaland cusub ee laga yagleelayo gudaha gobolka Gedo waxaase la tilmaamayaa in safarka uu ku weelinayo wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag kaasi oo ay dowladda federaalka Soomaaliya la danaynayso inuu Jubbaland hogaamiyo kadib dhismaha cusub ee maamulkan la yagleelayo lama soo oga qorshahan iyo halka uu saldhigan doono